السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مدن يالي مروين با والد السلامي سلام كل إيلابا. waxaynu mar kale isugu imarnay barnaamijkeennii ahaa waari mayside waraka haro waxaynu ku soo qaadan doonaa arrimo xasaasiya qof walba uu og yahay maanta waxa ka socda dhulkii Soomaaliyeed iyo adduunkaba miidiyaha ama wararka adduunku waxa weeyaan waxay qaada dhigayaan oo faaqidayaan arrimaha maanta ka socda Soomaaliya ku saabsan dekadii Berbera ee la bixiyay deeqda loo bixiyay waxaana adduunka oo dhan u mahadnaqayaa Soomaali meel ay joogto ay u mahadnaqaysaa dawladda federaalka Soomaaliyeed ee arrintaasi daboolka ka qaaday banaankana soo dhigtay haddaba Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka laga waayo soo joog soo jiifsa laga helaa soo joog ninka laga waayo soo jiifso ayaa laga helaa marka maanta waxaan u malaynayaa dawladda SNM in ay taagan tahay in la soo jiifsa laga helaa waayo waxa weeyaan maanta waxay bilaabeen in ay ooyaan in ay cabaadaan xaqiiqadii baana tibqool xaq walow kana murantii hore loo yiri marka waxay xaqii baa dilaacay waxa weeyaan maanta haddaba dadka reer awdal waxaan leenahay fursad baa maanta jirta fursadda jirtana waxay tahay in aad ummadda Soomaaliyeed dhinac ka raacdaan ummadda Soomaaliyeed way israacday hatta cid kale iska dhaaf waxa weeyaan bulshadii beesha dhexe dadkii isaaqi ayaa mudaharaadaya Berbera laga mudaharaaday Burca laga mudaharaaday haddii aad tihiin gobolka Awdal waa inaad idinkuna ismuujisaan waa inaydan noqon gadaalka gaad waa in aad u diyaar garowdaan inaad noqotaan gobol madax bannaan oo la yiraahdo gobolka Awdal State of Somalia waxa aad iyo aad aan idinku bogaadin lahaa aanan idinku tirtirsiin lahaa in aydan ha fadhiin inaad hadashaan inaad mudaharaadaan waayo waxay fursad haddii la helo laga faa'iideysto Soomaali ma kala hadhayso marka halkii ay niman kaliya ka faa'iideysan lahaayeen war laga faa'iideystay ka waxa kale idin sheegaya يعني مدحوينه ku-xigeenka ka soo jeeda Awdal dawladda lagu magacaabo Soomaaliland la shaqeeya waxa weeyaan uu ku bahdilan yahay meesha waayo waxa wax shaqo oo loo dirtaa ma jirto marka waxa kaliya loo dirtaa waxa weeyaan maqas inuu qaato meel furo waxa arrinkani wuxuu ahaa arrinkii isaga loo diri lahaa ee isagu uu qaban lahaa hadii wax la qabanayo marka waad aragteen sawirada isagu xagga dambe ka jooga marka waxaan leeyahay walaalkii Saylici war waxa weeyaan maanta dadkaaga hogaami soo bax boorama kaalay ismuuji no hogaami oo horka saasan ku leeyahay ummadda reer Awdal waxa weeyaan way ku jeceshahay dadkaagana in adeerow kaalay oo wax la qabso waxa kale oo aad uga xumahay in yaana media hortiisa ama kamarada horteeda ama television hortii in yaana qof Soomaaliya lagu caayo Faisal Ali Waraabe isagoo ka hadlaya meel shalay wuxuu caayay nin Soomaaliya ciddu dooniba ha ahaado laakiin kelmadaha uu ku yiri waxa weeyaan kelmada mamnuuc ka adduunka sida uu ku toogan sida midgaan waxa weeyaan ereyadaas oo kale waxa weeyaan maxkamad baa la isku saaraya haddii cadaalad jirto Soomaaliland la sheegay cadaalad ka jirtana waa in Faisal Ali Waraabe maxkamad la keeno weeyaan Faisal Ali Waraabe waa in maxkamad la keeno waxaan mar labaad u hambalyeeyaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan si aadan ugu hambalyeeyaa dawladda federaalka ee Soomaaliyeed waxaan cambaaraynayaa nimanka xamar jooga ee u ololeynayay in arrimaha Berbera dib loo dhigo ee uu kow ka yahay in Cabtaqaalib waxa weey waa niman aan meesha u joogin Soomaalinimo waxay muujiyeen inay meesha u joogaan qabiil oo ayna matalaynin ummad Soomaaliyeed marka waxa leeyahay iyagana waxa weyn hal iska jiro ummadda Soomaaliyeed ha iska ilaaliso nimanka dhibaatada u keenay ummadda Soomaaliyeed waxa kale oo ku soo gabagabeynaya sheekadeennii ahayd al-Hadaab wal-Haakim al-Fadaa waxaynu soo aragnay ka Cali oo hawlo badan soo galay wanaag badan soo sameeyay shimbir buu badbaadiyay kalluun buu badbaadiyay quraanjo ayuu badbaadiyay waxaynu marayna markaa ugu dambeyntii iyadoo boqorkii waddanka haystay uu ogeysiis soo bixiyay uu leeyahay gabadhaydii waxa ka lumay silis daaba ka lumay ninkii siliskaas soo helana wax weey gabadheeda ayaan
dirayaa ayaan u dhisayaa xujaa ku jirta laakiin xujada ku jirtaa waxay tahay ninkaasi waxaa lagu xidhi doonaa hal xidhaale shuruud baa lagu xidhi doonaa hadduu shuruudaha ka soo bixi waayana qoortaa laga goynayaa oo qoortiisana waxaa la surayaa shaarica ama dariiqa la surayaa si kastaba ha ahaatee waxa weeyaan axsaankii iyo kindnesskii iyo raxmaddii uu soo sameeyey cali buu ilaahay isagana ugu naxariisan doonaa sidaan filayo cali markaa ogeysiiskii markuu maqlay wuxuu go-aan ku gaadhay inuu noqdo ninka ugu horeeya ee u tartama gabadha guurkeeda isla maalintiiba wuxuu sameeyey wuxuu afufay khaatimkii ama fargalkii waxa u yimiday shimbirkii saaxiibkii ahaa u badbaadiyey labayk buu yidhi markaa maxaan kuu qabtaa waxaan kuu qabto ii sheeg wuxuu ku yidhi gabadhii boqorka u dhalay ayaa waxaa ka lumay siliskeedii dahabka ahaa qaaliga oo jeceshahay baa ka lumay markaa ogeysiis buu boqorkiina bixiyey ninkii soo hela ama keena ama sheega dahabkaa ka lumay gabadha wuxuu u dhisayaa inatiisa marka aniguna waan jecelahay inaan iska guursado gabadh u dhalay boqor marka waxay la qabo waayahay shimbirkii wuu duulay muddo yar kabacdi buu ku soo noqday wuxuu ku yidhi caliyow waxaad samaysaa u teg boqorka waxaad ku tidhaahdaa diigga guriga hortiisa fadhiya ee aan kicin diiggaasaa liqay dahabkii ee calooshiisa ha la qalo ha laga soo saaro cali wuu cararay wuxuu u tegay boqorkii waardiyihii buu yimiday waardiyihii buu ku yidhi waxaan doonayaa inaan furo arrintii gabadha dahabkeeda ahayd oo aan sheega meeshay taallay ee waxaan u baahnay in la ihdigayay boqorka nimankii waardiyihii waxay u tegeen boqorkii waxay ku yidhahdeen boqorow ninkii xabooaha ahaa ee magaalada xaabada ugu keenayay baa ku doonaya oo leh waxaan ogahay dahabkii meesha u yaallo waaya boqorkii wuxuu yidhi ma xaboolaa inateeda doonaya inuu dahabkeeda bal u yeedha haye maxaad haysaa markaasuu yidhi waxaan hayaa dahabkii wuxuu ku jiraa diigga casee halkaa fadhiya calooshiisa ayuu ku jiraa diigga ha la qalo kadibna ha laga soo saaro isla markiiba diiggii baa lasoo qabtay gudaha lala galay waa la kala jeexay waxaa laga soo saaray dahabkii okay markaasaa la yidhi okay dahabki waad keentay soo maha shardi kalea lagugu xidhayaa ka waad ka soo baxdaye ku kale ayaa lagugu xidhayaa marka iminka wuxuu helay mukaafa'adii ama hadiyaddii ugu horreysay ee uu ku kasbaday raxmaddii iyo kindnesskii uu sameeyey ayuu helay abaalgudkeedii markaa bal waxaynu arki doonaa xujooyinka kale soo socda waxay noqon doonaan mudanayaal iyo marwooyinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh